aad ugu faraxsanahay Cumar Heybad inaan isku aragno Malaysia dabcan waxa tahay fanaan qiimo badan oo si weyn looga yaqaano cariga Imaaraadka oo muddo dhowr sano ah ku soo noolaa halkaas sidoo kale waxaad ka mid tahay fanaaniintii Muqdisho oo sida aadka ah looga yaqaanay haddana waxaan isku wareysanaynaa Malaysia waxaan filayaa waa markii kugu horreysay aad timaado Malaysia waa ku dhawahay Ashari وانا كاغا مهد علينيا waata Cumar hadda Malaysia ayna la joogtaa bal ka waran safar miyaa noogu timid oo ana la sii joogi doontaa mise waa naga laaban doontaa oo booqasho gaaban ay nagu la joogtaa Ashari waan joogi doonaa hadii alla yiraahdo markani waxaan jecelahay inaan idin la dego Malaysia oo waqti badan aan wada qaadan hadii alla yiraahdo Cumar Heybad waxaad ka mid tahay fanaaniinta heesahooda sida aadka loo dhageysto oo fankooda muddooyinkii ugu dambeeyay si aad ah u soo shacbaxay waxaad qaadaa heeso fara badan oo dadweynaha daawanayo ay aad u jecel yihiin qudeyduna aan aad uga helo mararka aan dhageysanayo waxaan ka codsan lahaa maadaama ay tahay markii koowaad oo aan is aragnay in heesahaaga mid ka mid ah noo soo qabato iyadoo bilaa muusiga waayahay waxaan soo qabanayaa hees la yiraahdo qaali oo midhaha uu sameeyay abwaan Ota Dheere laxankana uu sameeyay Maxamed Sheekh Cabdilaahi wada noole labadoodana waan kaga faa'iideysanay fursadan oo waan salaamayaa dhaxan kalgacal dhankii raroondhi laha u culay dhaxan kalgacal soo dheelbiyoon dheeliga ka jiray soo dheelmiyoon dheeliga ka jiray dhaxa kalgacal jacayliga dhinto ajashii dhammaa abjacayligii qalibaa u dhigan waxidhay karo abjacayligii qalibaa u dhigan waxidhay karo dhaxalkii jacayl qalibaa u dhigan waaw waxaasaa kaa coda aad u mahadsan tahay Cumar Heybad dabcan waxaa markhaati ka ah in codkaaga iyo mirahaaga iyo laxankuba ay isleeyihiin heestan dadweynaha Soomaaliyeed ee daawanayo waxaana filayaa hadana qaldaneen in heestan ay kula qaadaysay fanaanada Nimca Dareen oo aad ku wada tunteen heestan dabcan Dubai Imaaraadka Carabta haddaan intaas uga sii gudubno Cumarow waxaad ka mid tahay fanaaniinta sida aadka loo jecel yahay fankooda fanaaniin badan oo sidaan oo kale aan meelo ku kulannay qaarkoodna aan noqono sheeko wadaag marka aan la sheekaysto waxay igu yiraahdaan annagu isma dhageysano oo waxaan jecelnahay xilliyada aan firaaqada nahnay inaan fanka la qaadano ama aan dhageysano fanaaniintii naga horeysay qaarkood ayaa jecel kabanka iyo heesaha degan adigu maadaama tahay fanaan si weyn looga yaqaano fanka iyo guud ahaan geeyga Soomaalida marka laga tago heesahaaga ma jiraan fanaaniintii hore fanaan kamid ah oo aad xiisayso hadduu jirana heesiisa mid kamid ah bilaa muusig hal iyo laba noo qaad fanaaniin badan ayaan xiisayn jiray oo ilaa iyo hadda aan xiiseeyo weligay jecelahay oo jeclaan jiray uu kamid yahay Allahu naxariistay Cabdilaahi Cumar Xarago uu kamid yahay Cumar Nuur Cabdulle oo macallinkayga ahaa Cabdi Tahriir Warsamo isna sidoo kale macallinkayga ahaa marka waxaan mid iyo laba ka dhihi hees uu Cumar Nuur Cabdulle Allahu naxariisto oo macallinkayga ahaa ku soo galay fanka uu ku soo galay oo la yiraahdo Jamaad uu lahaa erayadeeda Asad Allahu naxariistay Asad oo Faarax jamaadi wax jacaylan mooda tujilibka idhigay ijibaaxayanige jiribtii oo dhibtaan qabo jinni qabashabeelyo caar jimicsanaya jayahay saare jamaalkaagu inay yahay igu noqoya jooharad wadnahayga jiifti cilmikii jilbaha u dhigaahoya jaray maleego jeegaday gooye dadweynaha ayaa markaan markhaati ka noqon doona sida quruxda badan ee heesaha iyo heesaha kaleba
aad ugu fiican tahay ugu luuqeynayso dabcan aniguna kama caajiso dhabahan maraba sidii dhabi ka baxay adiga dhaxligan adaa dhaxligan halkan dhigo cagtana adaan meel dhowoon dherenka arka dhibta aan qabayo jacaylkani dhambalay dhaawacay darta dharar kolay ku tahay kadhayina tidha kama dhaadhacde dhagaada kida mise inaan dhutiyo cawada dhaco dheliyaad rabtaa hadal iyo dhammaan ay dhowranine abaali dhigo way iga dhante dhanun ijihe way iga dhante dhanun ijihe